Asalaamu calaykum daawadayaal waa Abdulweli Mawjal oo aad uga barateen inuu halkan idinku soo gudbiyo hadda waa markii ugu dambeeyay ee dunida iyo dhacdooyinka marka taagan waxaa weli cidla ah amaba haawanaya magaalooyinkii dunida ugu waaweynaa oo ahaa magaalooyinka ugu jaamka ama saxmadda badan xagga dadka isu socodka iyo gaadiidka gabi ahaanba magaalooyinka ugu waaweyn dunida ee sida New York, London, Chicago, Paris magaalooyinkii ugu mashquulsanaa dunida ayaa weli waxa ay haawanayaan tan iyo markii uu dunida ku soo kordhay xanuunkan dilaaga ah amaba halista ah ee sida degdega ah ugu fiday in ka badan 210 dal oo ku yaala dhammaan 5 qaaradood ee ka kooban tahay dunida. Haddaba cudurka COVID-19 ama coronavirus ayaa weli waxa uu ku jiraa dhammaan amaba guud ahaan dunida isaga oo aan weli halkiisi dhoweyn. Waxaan haddaba weli aanan la furin amaba aan laga qaadin bandoonkii magaalooyinka waaweynaa ee sida Talyaaniga, Spain, dalka Mareykanka magaalooyinka ilaa hadda xaaladda degdega ku jira waxa ugu horeeya oo safka hore kaga jirta magaalada New York, Chicago, Los Angeles iyo magaalooyin kale. Wadamada Carabta ayaa iyaguna sidan oo kale waxa ay ku soo rogeen magaalooyinkooda waaweyn bando oo aan isu socodka gaadiidka iyo dadkaba gabi ahaanba ay xayiran yihiin iyada oo dadka lagu amray inay guryahooda joogaan. Xanuunkan ayaa waxa uu faraba'an ku hayaa dhammaan dunida oo ilaa haddeerna aan loo helin wax daawo ah amaba lagu daweeyo. Xanuunkan oo asal ahaantiisa ka yimi magaalo ku taala dalka China ayaa waxa uu soo shaac-baxay January 2020 markii ugu horeysay oo la arkay isagoo si degdeg ah ugu sii fiday dhammaan dunida oo idil iyadoo halkaasi ay ahayd magaaladaasi Wuhan markii ugu horeysay lagu arkay 2019 dabayaaqadeedii. Haddaba cudurkan ku fiday guud ahaan dunida oo faraha ba'an ku haya ayaa waxaa la soo sheegayaa inay dhimashadiisina ay sii kordhayso walow wadamadii ugu daraa ee Talyaaniga iyo Spain ee hoos u dhac laga soo sheegayo. Shacabka ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York iyo kuwa siyaasiyiinta ahba ayaa waxa ay muujinayaan amaba ay baraha bulshada u soo marinayaan madaxweynaha dalkaasi haya ee Donald Trump inuu ka gaabiyay haweeneydan oo ka hadlaysay barteeda Twitter-ka ayaa waxa ay sheegtay in Trump gabi ahaanba aan ku fiicnin hogaaminta isagoo awalba ku liitay 3 shay ee ugu muhiimsan ee hogaamiye laga rabay taasoo ah inuu hogaamiyuhu saaro awoodda ugu horeysa xagga shacabka oo ah dhinaca caafimaadka isaga oo arrintaasna aan ahayn mid u soo jeeday ilaa iyo intuu dalka hayay taasoo maanta sababtay in uu xaalka coronavirus uu Mareykanku halkaa gaaray iyadoo uu dhintay in ka badan 10,000 ay tiri haweeneydan iyadoo dunida aad arkayseen in ay meel waliba bando tahay ayaa dal ka mid ah wadamada Afrika uguna dadka badan waxaa isu soo bax ay ka muujiyeen mujtamaca halkaa ku dhaqan dalka Zambia iyaga oo muujinaya dabaaldeg ayaa waxay isugu yimaadeen garoon lagu ciyaaro kubadda cagta in ka badan 100,000 oo dad iyo dhammaan caasimadda dalkaasi Zimbabwe. Dadkan oo aad moodid inay ka dhaga adeegeen ama iska dhaga tireen dhibka dunida ka taagan ayaa isugu yimi halkaa. Waxaa laga soo sheegayaa dalka Mareykanka in ay baahday shaqo la'aan oo ay halkaasi in ka badan 17 milyan oo shaqo halkaa laga waayay. Haddaba waxaan guda galaynaa daawadayaal halka uu cudurku ka yimi iyo sababta uu sida sahalka ugu fiday dunida. Magaalada Wuhan ayaa ahayd markii ugu horeysay ee lagu arkay January 15 isagoo oo si xoog leh ugu sii kordhiyay walow la sheegay in December 2019 markii halkaa lagu arkay. Waxaa January 15 ilaa 17 lagu arkayay magaalada Wuhan wadooyinkeeda dad maraya oo afka u xiran yahay waliba faras magaalaha iyada oo la sheegay xilligaasi in ay dowladda dalka China gacanta ku haysay in ka badan 480 kiis iyada oo aan warbaahintan soo marin. Waxaa la sheegayaa oo kale in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu ku amray madaxda caafimaadka in ay ku dadaalaan sida dadyowga China aanu ugu sii fidin cudurkaasi iyagoo ku guuleystay inaanu magaalada dhaafin. Haddaba waxaanu idinla wadaagaynaa daawadayaal sababta keentay inuu dunida ugu fido si sahal ah cudurkani.
magaalada Wuhan oo ah magaalo ku taal bartamaha dalka China ayaa waxa ay tahay magaalo ganacsi waxaana ay duulimaadyo siisaa garoonkeeda lagu magacaabo Tianhe 18 dal oo dunida ah oo ugu waaweyn yihiin wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Australia iyo dalka Faransiiska waxaana duulimaadyada tooska ah ee halkaasi ka duula ay kala aadaan magaalada New York, London, Sydney, San Francisco iyaga oo loo tirinaya in uu duulimaadyadii faraha badnaa ee ka duulay January ay gaarsiiyeen cudurka wadamada aadka hadda u faraha baan ugu hayo waxaa la sheegayaa nin u dhashay dalka Mareykanka oo da'diisu ahayd 30 jir inuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo laga helay isagoo ninkaasi ka duulay amaba ka laabtay safar uu Wuhan ku yimi isagoo dib ugu laabtay dalka Mareykanka iyo gobolka deganaa ee Seattle, Washington halkaasoo la sheegaya markii uu ka degay garoonka diyaaradda halkaasi in lagu arkay ninkaasi qandho amaba xanuun iyadoo aan markaasi saraakiisha Mareykanka aanay baahin amaba aanay warbaahinta u gudbin xanuunka ninkan iyadoo aan la garan waxaa kaloo la sheegayaa in xanuunkan January 17keedii laga helay in ka badan 6 dal oo ku yaala dalka Asia ay ka mid yihiin Japan, Thailand, Taiwan iyo Koonfurta